Askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa caawa darawal mooto bajaajle ah waxa uu ku toogtay wadada dabka ee magaalada Muqdisho xilli halkaasi ay u xirneed ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo gaadiidka wadadaasi ka calinayay. Xilli ay saxmad ahayd, jaam xooggan uu ka jiray wadada dabka, gaar ahaan agagaarka saldhigga booliiska degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, ayaa askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo doonayay in uu furo wadada oo xilligaasi jaam ahayd isla markaana xirneed, waxa uu toogtay wade mooto bajaaj oo uu ku amrayay in uu goobtaasi isaga dhaqaaqo, kaasi oo ku dhex jiray mootadiisa, balse markii xabaddu ay haleeshay dhulka ku dhacay. Dad shacab ah iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo nabad sugidii iyo booliiskii wadada u xirneed isugu jiray ayaa isku dayay in ay u gurmadaan, balse shacabkii ayaa ku dhiiran waayay in ay qaadaan darawalka mooto bajaajlaha ah ee la toogtay si isbitaalka loola gaaro, maadaama ay dadka shacabka ah ka baqanayaan in marka ay isbitaalka geeyaan loo qabsado dhibaatada loo geystay darawalka mooto bajaajlaha ahaa ee aysan ilaa hadda caddayn cidda toogatay, isla markaana aysan ciidanku iska soo dhex saarin. Bajaajlaha uu toogtay askariga ka tirsanaa ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa goor dambe laga qaaday goobta uu aad ugu dhiig baxay, iyadoona loola cararay isbitaalada mid ka mid ah. Dadka shacabka ahaa ee dhammaan fadhiyay agagaarka goobta uu falku ka dhacay ayaa goobta isaga cararay iyagoo ka cabsi qaba in waxyeello ay soo gaarto, maadaama wadadu ay tahay mid ciriiri ah isla markaana u xiran ciidamo ka tirsan dowladda, sidoo kalena gaadiidka dib loo celinayo. Sidoo kale, ciidamada booliiska Soomaaliya iyo kuwa NISA ayaa baadi goobaya askariga darawalka mooto bajaajlaha ahaa xabadda ku dhuftay si loo xidho, maadaama uu dhabarka ka toogtay dhaawac halis ahna uu gaarsiiyay. Goobta wiilka mooto bajaajlaha ahaa dhaawaca loogu geystay ayaana waxay u xirneed ciidamada NISA iyo kuwa booliis ah oo xalay ilaa iyo caawa kaamirooyinka waxduuba ku dhejinaya tabeelooyinka waaweyn ee dhinacyada jidadka suran. Shacabka wadada meheradaha ganacsi ku leh iyo qaar ka mid ah dhalinyarada bajaajleyda ah oo ku sugnaa goobta falku ka dhacay ayaa isku markhaati furay in ciidamada NISA ay xabadda ku rideen isla markaana ay ku dhufteen darawalka mooto bajaajlaha ahaa oo dhaawaciisa oo garaab ah loo qaaday goob caafimaad, balse waxa ay dafireen askartii ka tirsaneyd NISA ee goobta ku sugneed in falkaasi ay iyagu geysteen. Saraakiil NISA ka tirsan ayaana timid goobta falku ka dhacay oo aad ugu dhow saldhigga booliiska degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, iyagoo baadi goobaya cidda xabadda riday. Booliiska ayaana ku wargeliyay in iyagu ay ka shakisan yihiin ciidanka NISA in ay dhaawaceen isla markaana ay toogteen ninka darawalka mooto bajaajlaha ahaa xilli halkaasi wadada dhinaceeda ku sugnaa, sidoo kalena ay ciidamada markaasi wadada u xirneed ay ahaayeen ciidamada NISA. Ciidamada ayaana hadda isku tuurtuuraya askariga toogtay darawalka mooto bajaajlaha ahaa iyo cidda falkaasi geysatay oo saacad ka hor falkaasi uu dhacay.